marka tareenka mara kasoo bilaabma nagaad ee Djibouti dhexdeeda kasoo bilaabma ilaa iyo gaara Diridhaba waxa weeyaan xuduudda u dhaxaysa beesha Gadabuursi iyo beesha Ciise waxa harag kaga saxay waxay ahaayeen odayaashii beesha Gadabuursi harag harsagaale kaga dhex saxeen badda dhexdeeda magaalada Ingiriis baa dumiyay magaalada Saylac Ingiriis baa dumiyay cagafyuu adeegsaday tuugi waaweynaabu ku soo furay magaalada hareeraha haddii ay leeyihiin beesha Ciise Saylac maxay markaa uga saxay waa inay haragga uga saxay waa badda dhexdeeda iyagoo soo gelin baa badda dhexdeeda laga saxay markaad eegto danta guud ee ay bixiyeen beelaha Gadabuursi caasimadda Djibouti waxa ka mid ah xarunta tareenada ka soo dhawaaqaan iyo warshada korontada dusha sare liiseega airportka Djibouti ganacsatada inta loo diray oo dhaqaalahooda iyo lacagtooda markii la duminayay la geliyay hargo gabigeedu hargaa la geliyay dhaqaalihii lacagta ay hayeen Saylac dadkii xoolaha daaqsinta keenay bashaar kala xiranaya imka bada saab u xiraa bada saab maalintii dhow dhalinyarada wuxuu kula mataqaan ana aqal shaarkan soo saaray shaarkan bixin shaarka markaan soo dhigo aqal baan hayno hadaba waa bada saab bakhaarada lagu keydiyay dhammaan markii saa loo dhigo iyo bir waxa rago dhibsanaya ma jiro Saylac weyn Gadabuursi baa maayka waa markii ugu horeysay maay noqdaan dadku waa xadiisi waa run xadiidkan markii la sameeyay maadaama wuxuu ka cadeysnaa markaa haragii lagaga saxay badda dhexdeeda ka cadeysnaa halkaasi lugta maraysa bari ee tareenka waa dhul Gadabuursi lugta galbeedna waa dhul Ciise marka xuduudaas u dhaxaysa waxa ku marmaamay meesha ma yaan marka labada dhinacba inay nabadgelyo ka shaqeeyaan ayaan ugu baaqaya bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ahay Cabdirasaaq Idriis aqoonyahan wax ka qora taariikhda iyo sooyaalka Soomaaliyeed halka waxaan ka hadlayaa arrimaha Ciise iyo Gadabuursi xuduudaha caalamiga ah taariikhda soo jireenka ee u dhaxaysa iyo xuduudaha caalamiga marka laga soo bilaabo haddaan dib u raacno sooyaalka taariikheed magaalada Djibouti marka laga soo bilaabo taariikhda ay iyo saytay iyo si xuduudaha ay leeyihiin haddaan faahfaahino marka laga soo bilaabo 1917 waxaa la bilaabay tareenka xadiidka ee ka soo bilaabma magaalada Djibouti kaasoo soo mara ilaa iyo Ali Sabiix magaalada la yiraahdo Aisha ilaa Diridhaba intuu ka soo gaarayo wuxuu soo maraa dhulka Ciise iyo Gadabuursi u dhaxeeya taasoo nidaam sharci ah oo odayaashii Gadabuursi iyo Ciise ay ka heshiiyeen taariikhdu markay ahayd 1917 taasi waxa ku cadeynaya heshiiskaasi cidda uga kala qayb gashay iyo ahaa xagga beesha Gadabuursi waxa uga qayb galay heshiiskaas Xaaji Diide iyo Xaaji Kuul xagga iyagana uga qayb galeen laba oday oo kale heshiiskaasi waxa lagu kala saxeexday in tareenka loo qaybiyo labada dhinacba ay kala degan yihiin labada beerood tareenka xadiidka labada lugood ee tareenka xadiid ku socdo lugna waxa la soo mariyay deegaanka beesha Gadabuursi qaybtan bari midna waxa la mariyay qaybta galbeed deegaanka beesha Ciise marka tareenka mara ka soo bilaabma nagaad ee Djibouti dhexdeeda ka soo bilaabma ilaa iyo gaara Diridhaba waxa weeyaan xuduudda u dhaxaysa beesha Gadabuursi iyo beesha Ciise markaad eegto danta guud ee ay bixiyeen beelaha Gadabuursi caasimadda Djibouti waxa ka mid ah xarunta tareenada ka soo dhawaaqaan iyo warshada korontada dusha sare liiseega Djibouti airportka Djibouti iyo xarumo badan oo ay degan yihiin ciidamada Amerikaanka iyo Faransiiska iyo xarunta tababarka booliska ee Djibouti meelo badan oo kale iyaguna jira marka haddaan taariikhda sooyaalka dib u raacno xuduudaha u dhaxeeya beesha Ciise iyo beesha Gadabuursi tani waa xuduud caalami ah oo u dhaxeeya Saylac oo ku taala Baabul Mandab xuduud la leh inay sheegtaan maanta iyagoo xuduudeeda tahay xuduudda tareenka wadada tareenka ee ka soo bilaabanta magaalada Djibouti iyo ilaa Diridhaba ay tahay xuduudeedu taasi waxay noqonaysaa haddii ay macnaheedu ay leeyihiin waxaan leenahay Saylac oo laba xuduudada Baabul Mandab iyo Djibouti inay iyagu lahayn oo weligoodna arag magaalada Saylac oo u leenahay dhaqan ahaan Soomaalida kalena ay og yihiin sidaa markuu ahaa xuduudku ahaa arrinta Saylac haddaan ka hadalno marka magaalada Saylac asal ahaan waxay ahaayeen waxa iska lahaa beesha Gadabuursi gaar ahaan boqortooyadii waxa ka soo jeeda Adal iyo waasidii oo iyaguna ahaa taariikh dhaadheer kuwaas oo ahaa kuwo
boqol baarlamaana iyo 3 oday oo la taliyay ay lahaayeen waa sida beesha Gadabuursi xilligii Ingiriiska uu joogay meesha uu gumaysanayay horta Gadabuursi iyo iska deganaa Soomaali oo dhan joogtay oo deegaan ahaan u lahaa hadday iyagu degan yihiin oo meesha deegaan u yihiin waxay ahayd inay heshiis la galaan Ingiriiska iyo gumaystayaashii soo maray deegaankaas ee ka talinayay taasi may dhicin oo dadkii meel deganin ma sheegan karaan qof meel deganin taariikh ma ku lahayn ma sheegan karo iyaga waasidii oo kale iyo boqortooyinkii deganaay ee beesha Gadabuursi dhammaantood markii u dambeysay Ingiriiskii haddaan hoos u yeelno taariikhda waxa harag kaga saxay waxay ahaayeen odayaashii beesha Gadabuursi ku dhali maysid ku dhaqmi maysid harag harsagaale kaga dhex saxeen badda dhexdeeda haddii ay leeyihiin beesha Ciise Sayla maxay markaa uga saxi waayeen haragga waxay uga saxi waayeen badda dhexdeeda iyagoon soo gelin baa badda dhexdeeda laga saxay kuma dhalaysid kuma dhaqmaysid ilmaha uurka gala markay sagaal ay bisha 8aad marayso gabadhu ay foora bisha 8aad gasho qofka dumar ah ku uuraysta gobolka awdal ama Sayla Ingiriiska loo qaadi bisha 8aad sabab Ingiriiska uu soo dhasho gabadhaas Ingiriiska uu soo dhasho taas haday tahay fidisa sheegashadaas waqtiyada haragga ay kaga saxayeen awoodayaasho maxay haragga uga saxi waayeen hay haragga uga saxi waayeen taas haday jirto marka waxa weeyaan taariikhda noocaas la rabaa in la qariyo taariikhda noocaas ee saahayd iyo in la qariyo la rabaa marka waxa jiray oo waqtiyadaasi odayaashii taariikhda ka saxay haragga ka saxay kamid ah waxay ahaayeen odayaashii ganacsatada ahaa ee ka talinayay magaalada Sayla magacyadooda haddaan mid iyo laba ka taabano waxaan ka garanaynaa markaan taariikhda dan dib u raacno xaajiida kamid ah waxa kamid ah odayaal kale oo badan ka bacdi taariikhdu markay ay waqtiga ahayd ee haragga ka saxeen magaalada Ingiriis baa dumiyay magaalada Sayla Ingiriis baa dumiyay cagafyuu adeegsaday tuugi waaweynaa buu ku soo furay magaalada hareeraha magaaladii cagaf midhan baa lagu dumiyay ganacsatadii inta loo diray oo dhaqaalahooda iyo lacagtooda markii la duminayay la geliyay hargo gabigeedu harga la geliyay dhaqaalihii lacagta ay hayeen Sayla hargaha aad Ingiriis ku dirsan jiray hargihii baa lagu kaydiyay stoodada bakhaarada lagu kaydiyay dhammaan markii saa loo dhigay iyo bir wax harag oo dhibsanaya ma jiro Sayla weyn maadaama wuxuu ka cadaysnaa markaa haraggii lagaga saxay badda dhexdeeda ku cadaysnaa ee lagu yiri ku dhaqmi maysid taasuu ka cadaysnaa Ingiriisku markaa magaaladii markaasay gabigeygaba magaalada u baabiyey fooqyadii u dumiyey qiblateenkii masaajidii iyo wixii oo dhan taariikh oo dhan u dumiyey magaaladii saas ku baabaaday ka bacdi wuxuu guuray Berbera Ingiriisku Berbera buu guuray Berbera markuu guuray magaaladii baabiyey Sayla 3 baa u qaybsatay hadaba dadkii deganaa 3 qaybood bay noqdeen 3 qaybood waxa kamid ah qayb Djibouti loo guurtay magaalada Sayla dadkii deganaa qayb waxay u guureen Herar qaybna awdal loo soo guuriyay magaalada Boorama 3daasi Sayla u qaybsatay markaa taariikhda inta leeg baa jirta oo aan garanayno oo aan awoodayaashii ka soo gaadhnay markaas Sayla cid iska leh waa beesha Gadabuursi ee haragga ka saxday Ingiriiska iyadoo ay tahay taariikhdu ay tahay oo sidaa u caddahay in marxaladaasi Sayla laga dhigo arrin siyaasadeed oo dadka walaalaha ee wada degan meelo badan oo deegaano badan wada degan oo kamid ah dalalka macnaheedu Djibouti Ethiopia iyo Somaliland in la isku diro oo buugani uu noqdo buug la wadaay oo buug dadka isku dirayo oo laga dhigo oo dadka la isku diro arrin siyaasadeed laga dhigo ma aha taasi waa dadka walaalaha in la kala dilo ma aha waa in dadku ay ku wada noolaadaan meelaha ay ku nool yihiin tamaamulka haddaan eegno tamaamulka diiwaankiisa su-aasha koowaad baa tiri barasaabka weeyga baa tiri maayku waa iyaga baa tiri horta wixii magacaabis waa magacaabis oo dawladda unbaa soo magacaawda adiga waa lagu magacaabana waa la magacaabi karaa taa magacaabistu
iyadoo waa tahay oo qof oo magacaabis weyn dawladda magacooda laakiin dadkani waxay ku yimaadeen 2013 iyo 2014 waxaa jirtay waqtiga abaar ka dhacday tusaale ahaan abaar baa ka dhacday galbeedka abaarihii ka dhacay dadku waxay tegeen dadkii xoolo dhaqatada ahaa xeebtanay tegeen oo hayaameen caws ka doonteen xoolihii ka bacdi markay ku rafaadeen waagii dhaweyd waa kii lagu qaybinayay timir iyo raashin lagu qaybinayay magaalada Boon dadkii ka soo noqday ee galbeed ka tagay Shineele ayaa lagu qaybiyay timir raashin intii ka hadhay xoolihii ka hadhay dadkii ka hadhay abaarta ayaa lagu qaybiyay taasina waxay keenaysaa waxa keentay abaartii marka dadkan waa dadka reer guuraaya kol galbeed bay tagay kol meeshii caws yaalla iska tagayaan oo reer guuraana caws looma diidi karo oo Soomaalidu dhaqan waxay u leedahay in haday abaar dhacdo in qofku meeshii cawsle ay dadku wada cunaan xoolo wada daaqaan daaqsinta ku wada daaqaan marka daaqsin bay ku imanayaan marka dambana shaadka bedelinayaan laakiin deegaan ahaan meesha uma laha oo ciise magaalada Seyl iyada ta geerisi iyo garbada dar iyo hadaad aragto meesha la yiraahdo xariirad iyo hadaad aragto lughaye iyo gargaara galbeed iyo gargaara bari iyo dhamaan ila tuqoshi ila iyo hadaad soo dhacdo dhammaanteed dooxii geerisa dhammaan wax deegaan oo ku leeyihiin ama ay hanti ay ku leeyihiin oo guurtii ugu jira dhammaanteed dadkii xoolaha daaqsinta keenay un bashaar kala xiranaya imka bara saab wuxuu bara saab maalintii dhawey dhalinyarada wuxuu kula mataqaan wuxuu ku yiri dhalinyarada wuxuu ku yiri ana aqal shaarkan soo saaraya shaarkan bixin shaarka markaan soo dhigo aqal baan hayno hadaba waa bara saab maayay kay noqotay maayay ka 5 sano imka dawladdu bay noqdeen taana reesay ayaga ka gaabiyay inay soo saaraan maayay laakiin weligeedba imka wixii ku horeeyay maayarkan gadabuursiin baa maayar kankii ku horeeyay nuur baa kuwii hore maxad casay hayeen weligeedba gadabuursiin baa maayarka waa markii ugu horeysay maayar noqdaan marka waxa weeyaan deegaan ahaan golaha deegaanka markii aan tartameynay inagu waxa uu hiiliyay xisbigii talada hayay iyo dawladii waqtiga taladiisii iyaga garab siisay Soomaaliya kuwan kalena waa la sheegay iyadoo la sheeganayo isku bila Axmed baan oo reeb Axmed baan isku sheeganayo yaa dhamaan 7 xil oo gobolka ay Seyl dhamaantood lagu soo qoray 7 xil baa lagu soo qoray marka waxa weeyaan doorashada waa markii ugu horeysay ay maayar ka noqdeen iyadoo waliba garab laga siinayo oo laga caawinayo way ka caawinayaan waqti talada hayay waqtiga hore ee maamulka Soomaaliya waxay la talaa horta anigoo leeyahay labada dhinac kula talnaya horta waxaan kula talnayaa in walba inuu halku xuduudiisa tan ku joogo xuduudda caalamiga u dhaxaysa waxa weeyaan tareenka iyagoo inay galbeedkan ka joogaan si ahaan jireen kuwana bariga ka joogaan xuduudku waa sidaa way talaa sano bixinaya in xuduudku yahay lugta labada lugood tareenka lugta galbeedna ay ciise leeyihiin si odayaashii ay weesheen oo saxiixeen ay noo kala saxiixeen lugta barina ay galbursi leeyihiin taasana uu kula talnayaa inay nabadgelyo ilaa labada dhinac xuduudku waa xadiisi waa run xadiidkan markii la sameeyay sidiisa xadiidka markii la sameeyay waxa lagu qaybiyay dhulkan xuduudaha ay leeyihiin labada beelood ayaa lagu qaybiyay oo la yiri anagu dan guud waxaan u bixinaynaa odayaashii waqtiga jiray ee galbursi lugta bari kuwa ciisada waxay ka hore ka doodeen inay dhul daaqsimeedka laga maranayo birtanina ay faa'iido leeyahay hawskii xooluhu iyo ay cunayeen carabkii cunayeen inuu dhibaato u geysanayo tareenkan taasay ku doodeen markii hore ka bacdi odayaashii gadabuursi oo fahansanaa tareenku faa'iido u leeyahay yaa yiri waxaan rabnaa in annaga xaggayga si ay xuduud caalami ah u ahaado tareenka lugta bari xaggayga la soo mariyo ilaa Djibouti soo dhaxmo nagaab ka soo bilaabaya wixii bari ka xiga waa gadabuursi ilaa iyo duudeed dibarjoog ilaa xagga soo gali xuduudda lagu yacdo waa dhul gadabuursi xaggan kalena tiri dhaba ilaa ka soo gaarsiiyay ilaa iyo aashaca halkaasi lugta maraysa bari ee tareenka waa dhul gadabuursi lugta galbeedna waa dhul ciise marka xuduuddaas u dhaxaysa waxa ku marmaamay meesha ma yaalo marka labada dhinac inay nabadgelyo ka shaqeeyaan iyaan ugu baaqaya